tani markii dalka uu galay dagaalada sokeeye dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsay caqabado fara badan waxayna astaan u noqdeen halbeega dhibka wadanka ka jira. dhalinyarada ayaa dhanka kale waxay noqon karaan awoodda iyo lafdhabarka mustaqbalka Soomaaliya sida uu sheegay danjiraha dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto oo wareysi gaar ah siiyay Shabeelle TV. The future is based on the youth. mustaqbalka Soomaaliya wuxuu ku xiran yahay dhalinyarada. boqolkiiba 70 dhalinyarada Soomaaliyeed waxay da'doodu ka hooseysaa 30 jir, halka in ka badan boqolkiiba 60 ay da'dooduna ka hooseyso 24 jir. taasina waa tiro aad u sareysa oo dhalinyarada ah. waxay noqonaysaa wax aan Afrikaba lagu aqoon xitaa 50 sano ee soo socota. marka waxa aan rabno ayaa ah in shaqo loo abuuro. laakiin sidee baad u abuuraysaa shaqo? waxaa loo baahan yahay in la ballaariyo waxbarashada. in ka badan boqolkiiba 60 dhalinyarada Soomaaliyeed galaangal uma haystaan iskuulo. marka waxaan mar dhow bilaabi doonaa mashruuc weyn oo waxbarasho oo ah in la tacliimiyo dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaana diiradda aanu saari doonaa wiilasha iyo gabdhaha, balse aan sii kordhin doono awoodda gabdhaha ay ku aadi karaan iskuulada. sababtuna waxa ay tahay marka aad ballaariso awoodda gabdhaha ee waxbarashada oo aad dhaafsiiso boqolkiiba 43 iyo boqolkiiba 45, waxaa kordhaya horumarka dhaqaalaha. waxaa dunida caadi ka ah in awoodda dhalinyarada lagu tiriyo hantida ugu weyn ee dal walba uu leeyahay. hase yeeshee dhalinta Soomaaliyeed ayaa ah kuwo ku dhiban gudaha dalka iyo qaybaha kale caalamka ee ay u hayaameen iyagoo ka cararay kadeedka ka jira wadankooda. Maxamed Amiin, Shabeelle TV.